kanaad kolka hore nooga bilaabanay harkahan yaryaren haddii aan meesha kusoo qornay kadibna xadhig intaan dhiganaynaa xadhig kale waxaan dhiganaynaa maalan halkan oo ilaa 6 iyo inay noqdaan baa fiican meelahaas oo kale sidan baad horta u samayn insha allahu marka koobaad waa meesha aad ku kanfi lahayd baad joogtaa saasaan u dhigaynaa si isla eg kow iska dhig kow haddana kan kalena waa 2 kafanka sida sunnada waa 3 dantaa laga yaaba inay keenaysay iyo duruufta laakiin sida alka waatan sida asalka waatan culimada ma la socotaan maxaan samaynay 3dii kafan oo xarka yaryar ay hoosta aan dhignay ayaanu halkaa dhignay markaan kafanta dhigay yay ahayd inaan halkan ku aadan aan kan dhigo waa la fahamsoo soo maha kadibna sida markuu yahay dhinaca midig baa laga bilaabayaa inkastoo okay sidan tahay okay haye tii labaadna waa kan isagana waa kan kii saddexaad marka waa kan maartan hadda haddaad fiirisaan maxaa soo haray xarkihii oon diyaarsaday oo halka ii yaalay waa kuwaa marka okay kaas waa kaas kanna waa kaa kanna waa kaa kanna waa kaa kanna waa kaa hadda ma la fahmay kan intaa lagu xidhayaa kanna intaa lagu xidhaya marka maradan soo maartaan maro weyn baan ka soo dhigay wax yar oo naf lahayn baad horey u dhigaysaan kadibna halkan waad dilaacinaysaan waxaa ii soo haray haddii meydkani la waayo hal oo maxaa la yidhahdaa aan kan ahayn oo lagu hal miis baan haystaa soo ma hal miis basaan haystaa dhihi saasaan dhihi maalan waan duuduubaya marka soo duub kan soo duub hal miis soo ma rabtaan sida loogu kanfo inaan idiin faa'iideeyo ayib intaasoo kalaan saas dhahayaa waa la fahan soo ma maalan waxaan keenaya hadda meydka tafadal meydkoo kale maalan tusaale ahaan keenaya seexaada maani halkan waxaan ka dhigaynaa meel cidla aya oo aan waxba olin soo saas ma oo dhulka yaalla hor yar soo yar dhulka yaalla kadib maxaan samaynaynaa sidan baan dhahaynaa sax mujida isla ekeysiina waan ku qiyaasayaa isagoo hadhowta xagga iga badanin soo saas ma kadib kanaan qaadaya sidii caadiga ahayd saasaan dhahayaa kadibna saasaan dhihi ha fiiriya mujida fiiriya si fiican samey waxaas dhan waa diyaar kadib soo celi marka hadda maxaa arkaysaan mujida arta khalaas saasaad marka u samaysan hadihi ariiqa marka mas'alo walba waxay u baahan tahay cilmi iyo aqoon bay u baahan tahay mari waxaa noo soo haray oo keliya marka jinaazadii meydka markii lagu tukanayo jinaaza lagu tukadaa jinaasada rag markii laga hadlayo halkaa madaxa abuu imaamku istaagaa dumar markii laga hadlayana halkaa dhexda abaa la istaagaa saxiix jinaazadu waa 4 takbiirood mar walbana dadka waa la xusuusiyaa marka takbiirta koobaad sidan baa la dhihi hadda waa nin mugtana maalan saasaan dhihi allahu akbar kadibna maxaan akhrinayaa suuratu alfaatixa kadibna allahu akbar salliga nabiga ibraahimyadan ku sallini kadibna ka saddexaada waa maxay allahu akbar kadibna meydkaa loo duceyno weliba waa lagu dheeraadaa midda ah ayaday gabar tahay iyo hadduu nin yahayna waxaa loo kala duwaaya dad carabi ku hadlayso allahuma akfir lahu allahuma akfir laha allahu akbar oo mid afraad muslimiinta loo ducayn kadibna assalaamu calaykum waraxmat ullah in sha allahu tacaala cilmigan waa cilmi aad muhiim u ah ha laga faa'iidaysto dadkan ha la gaadhsiiyo subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfir wa atuub ilayk